magaalada Kismaayo xarunta ku meel gaarka ee Jubbaland ayaa lagu qabtay munaasabad lagu caleemasaarayay nabadoon Shariic Cismaan Maxamed oo maanta wixii ka dambeeyay xil culus u qaaday mid kamid ah beelaha deegaanada Jubbaland munaasabadan caleemasaarka ah waxa ka qayb galay qaybaha kala duwan ee dhaqanka Soomaaliyeed darajo kasta oo ay lahaayeen haween dhalinyaro siyaasiyiin iyo marti sharaf kale ugu horreyn qaar kamid ah dhaqankii ka soo qayb galay munaasabada caleemasaarka nabadoon Shariic Cismaan Maxamed ayaa hadallo dardaaran u badnaa ka jeediyay munaasabada inaad oday xeeriye tahay oo reerka dhaanshow u tahay oo gabadha ariga raaco kala dhaqankeeda aan leedahay adaa laga rabaa dushaas adaa laga rabaa adaa doontay adaa yiri baalka halayso annana baalki waa ku sura waxaan hadalku intaas inuu iga dheeraada ma rabin tolka waxaan ka codsanayaa soo qaameeyay ninkaas iyo sokeeyaha kale oo noo yimidba ahalooy oo qaraabo ilma adeerayaal oo loo kaalmeeyo oo guriganaga xaafadda hoose taftayaan la qaban ninkaas anigu maalintii laygu caano shubay 28 sano ka jooga wiil yar oo Korean ah hadda ogaan la saakam yeeleen anna waa garanayaa qofka raba aakhiradiisu inuu la badbaado dheeriga iska dhaafay wuxuu ka carar lahaa anigu waxaan ogahay beesha bicdiyahan ee ninka keentay ninka duubidda aan duubanay oo Jubbaland u duubanay waa ku dhannahay talabaad ku dhannahay kaliya maaha waa guddoon annaga guddoominayaasha waxaa laga rabaa dulqaad iyo sabir iyo adkaysi beesha soo imaamaday odaga keentay waxaan leenahay dawaa keenay waa laga haraa maaha waa inaad sidaad u keenteed aad ola shaqaysaan aad ola qabataan hawsha dhinacyaha aad ka istaagtaan aan suuqa lagu caan waliba annagu beesha harti haddaan nahay waxaan garanaynaa odayaasha in meelaha laga maaga iyagoo shaqadii heeyo oo ku jira oo maalintii iyo habeenkii aan seexanayn oo dhibaatada ee ku dhacaysa baa la maagayaa waxaan rabnaa inaan odaga la maagin inaad la shaqaysaan baan rabnaa annagana insha allahu bidnillaahi waa la shaqaynaynaa wixii uu nooga baahdo oo talena waa ka toosinaynaa waxaan leenahay ilaahay baan u baryaynaa inuu ilaahay xilkaa u fududeeyo xilkaa loo idmado inuu ilaahay u fududeeyo intaasaan anigu kusoo gaabsanayaa waxaan maaragtay u hambalyaynayaa waaska maaragtay suldaanka maaragtay nabadoonkana loo keenay baan u hambalyaynayaa anigoo ah guddoomiyihii dhaqanka beesha harti waanu soo dhawaynaynaa nabadoonkana loo keenay gamco furan baan ku soo dhawaynaynaa boqolkiiba boqol baan soo dhawaynaynaa waxa weeye ninkaas waan qaadanay waan iska qaadanay waa soo dhawaynaynaa aad iyo aad baad u mahadsantihiin intaa kadib waxaa la duubay sidii caadada ahayd la huuyey shaalkii iyo koofidii lagu yaqiinay odayaasha dhaqanka la saaray nabadoon Shariic Cismaan Maxamed gabagabadiina waxa uu jeediyay nabadoonka la caleemo saaray hadal kooban oo macno weyn xambaarsan waxaan u mahad celinaynaa ilaahay baa mahadleh ilaahay baa mahadleh wax loo mahad celiya ilaahay baa mahadda ilaahay ka sokow inta gogosha dhigatay oo xafladda samaysatay oo anigu dadka umana aqoon badnayn umana ragaanimo badnayne ay magacaabatay nise iyo rujaal culimo iyo caamadu aqoon-yahan iyo dhalinyarabo waa u mahad celinhayaa boqolkiiba boqol baan u mahad celinhayaa waxaan kaloon u mahad celinhayaa intaas oo xafladda ka soo qayb gashay oo soo ajiibtay codsigii loo joodiyey waa u mahad celinhayaa mahad ka sokow ma badinhayo sheekii noo furahay aayadaha qur-aanka baa hadalka wuxuu noogu fura in la iska ilaaliyo maxay wixii la dhihi jiray xeerka haddii sulxuna waa bannaan yahay sulxuna waa bannaan yahay haddaan sulxu wax lagu dhex wadin wax lama wadi karabo waa soo dhawaynaynaa waxaan leeyahay
ummad badan oo dal calmada la caleema saar wixii loogu talagalay waxaan ahayn la aado waa badan yihiin ilaahay nagama dhiga kuwaas meeshii loogu talagalay xilkiina loo dhiibtay inaan la hawaabin oo wadada ay leedahay aan la marno ilaahay baan ka baryaynaa oo haqa ilaahayna waafajiyo sabriyo Soomaali warbaahinta Jubbaland magaalada Kismaayo